بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على امور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، وصلى تسليما كثيرا. اما بعد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. maanta taariikhdu waxa weeye 22 bisha May 2022 oo ku beegan 22 bisha Shawaal 14 ah oo bisha Soonfureed. meesha hadda aan taaganahay waa Galyo Caale Cabdimajiid Balle Busle. alxamdulilah rabbi alcaalamiin. ilaahay waxaan weydiisanaynaa khayr iyo dowlad khayr qabtaa. ilaahay weydiisanaynaa waxyaabaha cajiibka ah oo intii dowlad la-aantu ay dhacday ka dhacay waddanka ayaa waxaa ka mid ah in dhulkii ilaahay dadka qaarka ay leeyahay annaga iskale, oo haddaad maanta u baahatid meel aad degtid oo nafi kuu qabato iyadoo magaalada geesaheeda dhan bannaan yihiin waan cidina deganayn, meel kasta qof baa sheeganay wuxuu leeyahay anaa iskale. oo seebu ku yeeshay meeshaa haddana qofkaasi wax dhagaxan waxaa leeyahay wax boos uu ku leeyahay male, guri ugama dhisna, dukaanna ugama dhisna, maaragtay meel uu degan yahay oo reer u degan yahayna maaha. laakiin muxuu sameeyey? rinji buu geed mariyey ama fuustuu meel ku aasay iyo wax la mid ah weeye. markaasuu wuxuu gashanayaa wuxuu gashanayaa ilaa intaasoo kilomitir ama intaasoo mitir ayuu wuxuu gashanayaa maaragtay fuusto ama rinji marsanayaa geedaha u dhowdhow. wuxuu leeyahay anaa iskale. hadda waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid a runtii oo imaan la-aantaasi meeshay gaadhay waxaa ka mid ah Galyo Caale Balle Busle. wuxuu ka jiraa xagga qoraxa ka soo baxdo, wuxuuna u jiraa muddo qofka soconaya 1 saac meelaha qiyaasi u jiraa. waa Galyo Caale waa caan intaa la aqliyeysanay odayaasha abayaasha xataa aqliyeysteen wuu jiray. macnaha waa dhul ilaahay oo biyuhu galaan oo balle ah oo Galyo Caale la yidhaahdo. waxa weeye Galyo Caalaha Balle Busle hadda intii weli u jiraa, isaga inta u dhaxaysana Balle Busle weli waa cidla oo meel degan yahay male. haddana waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah oo aad la yaabi doontaan waa kan geedkii iyo cadii. waa kan geedkii lacada lagu sheegayo, waa geedkaa wey oo galka ku yaalla. waa geedkaas garanaysa, waa kaa isagoo haddana mar kale waa kaa ma garanaysa. geedkaa iyo cadaaba ku magac dheeriya. geedkaa laftigiisa ayaa rinji la marsaday, rinji baa la marsaday. waa kaa rinjiga gaduudan baa la mariyey, rinjiga gaduudan ayaa la mariyey. haddii wax loo mariyo waad garanaysaa. waxa weeye anaa leh wey, qof baa wuxuu leeyahay anaa leh. waa kaa rinjigu day kan keligiis maaha, kanna waa ku yaallaa. waa ka rinjiga waa ku yaallaa, waa ku yaallaa. u fiirsada, ilaah baa idinku daarsi u fiirsada. waa kaa rinjiga, waa kaa gaduudan rinjigu la mariyey. waa kaa marka waxyaabaha la yaabka Soomaaliya ka dhacay bay ka mid tahay. waxa weeye haddii maanta loo baahdo iskuul in la dhiso ama loo baahdo in maaragtay qof uu guri dhisto meel ka yimid, ilaa sida la yaqaanay guryaha markii qofku meel u baahdo ayaa dhulka bannaan la dhisan jiray oo dowladdu canshuuri jirtay ama cid kale maamulka joogta qofka siin jirtay u cabiri jiray. maxaaba lagu cabiraa? wax cabiraana ma jiraan. meel kastana qof baa rinji barsaday oo wuxuu leeyahay anaa iskale. marka Galyo Caale 1 saac u jira Balle Busle looga lugeeyo ilaa inta u dhaxaysa iska daaya ilaa iyo garacad ama wadada qaadida fuusooyin iyo bahasa ku wada go'an. haddaa maanta marka u baahatid oo inaad dhisatid, qofkii dhisan mayo wuxuu u calaamaystay inuu lacag ka qaato iibsada keliya. marraba qofka rinjiga marsanaya ama fuustada gashanaya 99% inta loo qiyaastii ma raba ay dhistaan, waxay rabaan dadka inay ka iibiyaan. marka lacagtaas inay xaaraan tahay baan culimadu sheegeen. culimada waxaan ka codsanaynaa inay si fiican u faahfaahiyaan meel walba oo la joogo. hadda maanta haddaan Balle Busle yarka uga baahdo meel yar oo aan ka dhisto, waxa weeyaan qof baa wuxuu oranayaa anaa leh iga iibi, anaa leh iga iibi. aniga isaguna waa kuwa dhalan. wuxuu leeyahay waa ku yeeshay rinji u marsaday. saa wax ma lagu yeelan karaa? ma garanaysa. marka wax aad u la yaab badan weeye. waxaan kaloo leeyahay dadka Busle, dadka ehelka ah, dadka Soomaaliyeed oo maaragtay wax garanaya, war imaan la'aanta iska daaya. war waxa dadkeenu la qarimay oo carruurtii edab u yeelan laadahay oo dadkii la isu maqli la'yahay oo xumaantu u badatay oo wanaaggii u yaraaday, xaaraanta la dardalaya weeye. har iyo habeen oo la cunayo aan la kala jeclayn weeye, aan la kala jeclayn weeye. war dhulka ilaahay baa dhul ilaahay qofka ma iibin kadib. dhulka haddaad u baahan tahay hadda xamar iyo sayn arki jiray ama manacaasida dowladuhu markay yihiin, qofka dhulka in loo cabiro oo uu dhisto hadduu guriga dhulka rabo. hadduusan dhisanaynina dee waa dhul la isaga rijiyeeyo meel ku taala ma jiro. mid baa wuxuu barsanayaa ilaa iyo maaragtay 1 kilomitir buu wuxuu fuusooyin gashanaya. marka waxa weeye arrinkaa isaga ah dowladda hadda dhalatay iyo dowladaha soo socdaba waa inay wax ka qabtaan. waa in dadka loo sheegaa qofku hadduusan meesha dhisanaynin inuusan qofkii meesha dhisanayaa
ومويان قف كلا وصل مال قادن كرن سida kale culimada waxaan ka codsaynaa walaalayaal meel joogtada Soomaaliyeed khaasatan arrinka dadka inay u cadeeyaan lacagtaasi ma xalaalba qofkaasi uu dhul cilah iska rinjiyeysanayo oo uusan dhisanaynin ujeedadiisu aysan ahayn ay tahay maaragtay inuu iibsado qofka ka iibiyo ilaahayna quraankiisa uu ku yiri inna al-arda lillahi yurithuha man yashaa min cibaadihi ilaahay quraankiisa ku yiri subhanahu wa ta'ala dhulka ilaahay baa iska cid war u dhaxalsiyaa wadamada kamid marka waxa weeyaan dhulka ilaahay baa leh saasa naqaana arinta iyada waanta waxay taagan tahay galiyo caale oo umada ka dhaxayo caan oo balli ilaahay la yaqaana in la heshiiyay maraysa in la heshiiyay maraysa marka arrinkaas waxaan ka codsanayaa culimaduna inay meel bulshada magaalooyinka waaweyn sida maartay ilaa iyo raasasay raaskaba inta u dhaxaysa iyo kala sanaad iyo meel bulshada Soomaaliyeed deganta ayeen afdhiiba dhammaan in culimada arrinka ay ka hadlaan waana arrin caan noqday oo ka jira meel walba marka haddii dadku xalaal qoodanayaan culimada ha u cadeeyeen hadday xaaraan tahay dadka ha u cadeeyeen fa subhanaka allah wa bihamdika wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh